السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب سود وهذا عاو حربين الذي يسوق فيها أما عندنا وذاكو complete website Dhamaystiran oo responsive sida loo sameyn kartid adigoo isticmaalaya HTML CSS iyo Bootstrap. marka si aad u sameyn lahayd website qurux badan oo Dhamaystiran oo responsive device kasta ku shaqeynaya, device isagoo aan waxba luminayn ama aan design-kiisu wax isbedelayn. okay, marka website-ka rabno caawinayna kan oo kale inaan tuso kan oo kale inaan sameyno haddii aan hawada la idmo. marka hal mar moodo sameyn karo, laakiin party ayaan ka dhiganaa. caawa partiga ugu horeeya ayaan qaadanaa haddii aan la hawada la idmo. intaanba waxaan qaadanaa partiga oo header section oo kale ayaan qaadanaa. waa website dalxiis oo kale oo gobolada dalka kale aad ku dalxiis kartid oo si online aad uga booking garaysan kartid oo kale. okay, marka haddaynu bilowno waxa yaala aniga desktop-kayga hal folder-ka ku dhex jira folder kale oo image ku qoran tahay. waxa yaala halka image oo aan u isticmaali doono background ahaan. haddaan eego extension-kiisa waa jpeg weeye. jpeg saawiro kartid baabu. folder-kaygan waa root folder-kayga aan ku save garaysan doono file-shayda. okay, sublime text-kayga ayaan soo furayaa. marka soo furo waxaan rabaa marka ugu horeysa file-ka koobaad ee html-ka inaan abuuro. control n ayaan idhi, haddana control s ayaan idhi saan save garayo. folder-kii ayuu toosii geeyey anuu horey baan marka ugu save garaystay, laakiin hadduu meelaha kale ku geeyo meeshuu ku yaala folder-ku tag aniga hadda halkaas u yaala oo ka ah. then magacu la bax index.html. okay, mar labaad control n control s copy ayuu geeyey. waa css page-kii kani style.css. then html tag-gaaga ku noqo page-kaagaan leeyahay html. okay, line.com waa title-kii 252 dalxiis.com. okay, intaa markaad samaysid html-kaaga iyo css-kaaga isku xidh. marka ugu horeysa waan isku xidhayaa hadda style.css. okay, intaa markaad html-kaaga iyo css-kaaga isku xidhid wadaada page, maadaama aan isticmaalano html css iyo bootstrap saddexdaaba aan isticmaalano, waa inaan soo qaadanaa linkiska bootstrap-ka. marka aan google tago then aan soo qaado waxa loo yaqaano aan tago get bootstrap. linkiyada bootstrap-ka uma soo qaadanaa haddii aan la hawada. okay, first link waa linkiga css bootstrap-ka, waa kan ugu horeeya inaan soo qaado. okay, kabtaan oo dhig then ku noqo saddexdan iska soo wada qaado waxaa kala reebin. okay, dhammaantood midaynu u baahannahay iyo midaynu u baahnayn baa soo wada jiid. okay, intaa markaad samaysid waxaad tagtaa borigaaga tag. okay, marka ugu horeysa markaa waxaan qoranaa commenti si qofku hadhito hadduu doono haddii qof oo aad u kala xasuusatid oo kale section walba wuxuu yahay comment bay ka horeysiinana. commentiga wala fahmaya waan filayaa soo maha. okay, marka section kasta wuxuu yahay ayaan qoranaa. marka waxaan dhahnaa kan waa header section bay caawadi baranaa haddii aan la hawada la idmo. header section. okay, section baan ka bilaabanaa. section-ka ugu horeeya waxa galaaskiisa waxa weeye waa header. okay, header-ka gudihiisa waxaan dhex gelinaynaa div-tan waxaan ku kaydsan doonaa dhowr elementi, laba elementi meelahaas. div-ta waxaan u bixinaynaa container. okay, shayga ugu horeeya aan ku dhex qoranaa waxa weeye waa h1 tag. waxaan bixinaynaa dalxiis as log ahaan ayaan isticmaalnaa dalxiis.com.
booska loo wadaagayo gelisay. Okay, mar labaad hoos tag. hoos markaad tagtid halkan waxaad ku qortaa waxa la yaqaano button. Okay, buttonka class c classkiisa waxa weeye waa login btn login btn login. Okay, tab c tabkiisa waxa weeye waa button. Okay, magaca labelka muuqan doonana waa login. mar labaad copy se copy waqti uu sabtreysano then login btn waxaan ka dhiganaa sign up btn sign up. kana waxaad ka dhigtaa sign up. Okay, intaas markaad samaysid waxaad kala ku dar kartaa dhiftan ka bax containerka hoosteeda tag. waxaad samaysataa waxaad tiraahdaa h2 xoogaa title ayaan halkaa ku qoranaa. kadib waxaan leenahay u safar gobolada oo dhan si raaxa leh. Okay, gobolada dalkaaga ayaad safri kartaa. waxaad ka dhigan kartaa adigu global travel baad ka dhigan kartaa. waxaad caalamka oo dhan website laga soo booqan karo. laakiin anaga hadda maadaama aan Soomaali nahay aan Soomaali ku hadlana Soomaali ku sharxana waxaan ku practice gareynaa website Soomaali oo kale Soomaaliya kaliya ka shaqeynaya gudaheeda kale oo Soomaali ahaan u shaqeynaya. Okay, some paragraph baan ka raacnaa paragraph yar. Okay, paragraph ka yar waxaan dhahnaa mitnaba subscribe Lancome 252 channel. Okay, and press the bell icon. Okay, inta markaad samaysid control s waxaan arsan aan tijaabina barorta intaas. waxaa fiican talaabo kasta aad qaadday inaad tijaabisid, laakiin sidan ayuu soo baxayaa. waa HTML khaliya. marka HTML-ka no problem, dhib badan kama yimaado inta badan. CSS-ka laakiin markasta taa kasta aad qortid ay u baahan tahay inaad tijaabisid si aad u aragtid isbedelka dhaca. laakiin HTML-ku inta badan ma keeno cilado iyo wax isdhaafdhaafa. inta markaad samaysid waxaad samaynaysaa dhif kale. dhiftan waxaad bixinaysaa one search box iyo buttonkeeda ayaan rabnaa search box kaliya inaan ku samayno. Okay, class leh waxaad bixinaysaa maadaama aan isticmaalano bootstrap input group. Okay, input group waxaan bixinayaa hal input oo hal text box ah. tab waa text name kan uma baahnin maanta. Okay, boska name waxaan ku bedelinaa class ka waxaan bixinaa form control. Okay, waxaan ku daranaa one placeholder. placeholder waxaan ku gelinaynaa raadi magaalada aad rabto. Okay, placeholder-ka lama dheereeyo laakiin no problem. Just example baan la jeedaa. laakiin placeholder-koodu waxaan ku xiro gaaban oo laakiin meaningful macna fiican sameynaya. Okay, placeholder-ka inta markaad samaysid dhamaad ka tag dhif kala sii samayso. dhifta kale waxaad ku sii dhex darsaa kale
okay dictas waxaa tirahdaa class input group append. okay then waxaad ku qortaa hal button kan typekiis waa maxay? Typekiis waxa weeye waa button. okay class waxaad siinaysaa hal class ayaad siinaysaa input group text btn hadda ka sii raacdo baatarada. okay xagan markaad magaca aad labelka la arki doono chb control s browser ka tag refresh gareynka. okay maxaa soo galay one text box placeholder waa kan button ki waa kan aga paragraph ki waa kan h2 ki waa kan labadii button ee sign up ka iyo logo waa kuwan tixis waa kuwan. then marka already weyn haysanaa dhamaan html keeni wanaagsanaa wada soo baxay. waxaan rabnaa inaan kala habayno oo aan ka dhigno sidan oo kale aan ka dhigno aan ku xino background ka aynu linear gradient ku darro area ka sokaysiino labada button halka dhigno already marka balance socono css ka ayaan tagayaa. marka ugu horeysa waxaan qorayaa iska saaraya margin ka iyo padding ka default ga margin 0 padding 0 hoos ayaan tagayaa. waxaan leeyahay dot header meeshaan ka soo qaatay waa class kan sidoo kale aan copy dhaho okay xagan ku bedel marka waa class ka background. okay background kiisa waxaan dhahnaa linear gradient aan ka dhiganaa. waxaan isticmaalaa marka RGBA red green blue alpha. okay waxaan ka dhiganaa ka horeeya 0.8 oo kale. okay comma RGBA okay 0.7 aan kan dhaho. okay dibadda uga bax marka hal image ku dar url then hadaasa image /2.jpg. okay .jpg iyo image ka meeshan ka keenay markii hore ayaa ku soo sharaxay. image waa folderkii lancome ee aan ku save gareystay labadan file ka html ka iyo css ka waa folderkii dhex yaalay ee image ku horeeyay. tugana waa sawirkii dhex yaalay magaciisii jpeg na waa extensionkiisa marka hore ayaan ku soo sharaxay iyaga marka waa no problem. okay browser ka tago oo sorry browser ka tago waa kan kawaay okay waa aragtaa uu soo galay laakiin xogaa ma fiicna aan hagaajino. okay marka waa background size hadana comma. okay background position hadana center. okay waxa ku xiga background attachment fixed height 700 pixel. padding 20 pixel. text align center font family sans serif color white. then control s unoko refresh it. okay that's good. and then header ka waan siinay background ay siinay marka waa inaan waxyaabaha kala durjurkino dooda booskiisa geeyno dalxiis.com aan halka geeyno maana looga ka dhigano labadan button aan halkan dhigano intan kalena aan hoos dejino aan habayno. okay
si marka hore briefing hore aad ku soo aragtay kale. Okay, marka ugu horeysa glasska ugu horeeya soo qaadanayna waxa weeye okay headerkan soo qaad xaggan hoose tag paste ku dheh h1 dheh then waxaad siisaa wax la yiraahdo marka ugu horeysa waxaad tiraahdaa float left font weight sorry body font size I think waxaan font size ma h1 type body okay لكن توري بيسوس كسي اوكي حاجه سينجيني حاجه لو كده عندنا فرتها ان كبدلنا yes then انت markaad hajku qortid waxaan ku xijinanaa inaynu buttonska aynu hagaajino kale okay inoo soo qaad buttonka xaggan xiga oo ah loginka waa kan loginka ay soo horeeya ka soo qaad buttonka soo qaad loginka okay waxa ugu horeeya in siinana buttonka waxa weeye waa width waxa lahaynaa 100 pixel waxaan siinana waxa loo yaqaano padding waa 5 pixel 0 okay background and then transparency okay border radius 50 pixel okay and the border relative border okay 1 pixel solid white color kisan okay waxaan siinaa outline ka saar lande okay and color C waxaad ka dhigtaa white ka dhig waxaad tiraahdaa markaa float right I think it's a control S okay sign up kan waxsan sign up qodisa dib malaha sign up kan ku noqono sign up waa kan noo soo qaad classka sign up ka inoo soo koobiye css ka ku noqo xagan tag okay maadaama isku nooc yihiin kan inoo soo koobiye tag paste ku dheh control S dheh refresh dheh okay way isku dhigeen soo ma kan waxaad ku taxatirada margin right 10 pixel okay ku noqo refresh dheh xogaa way kala yaray okay waxaad ku noqotaa waxa loo yaqaano html ka html ka marka h2 gan inoo soo qaad copy dheh css ka tag nodi okay kor aad headerkan inoo soo qaad maadaama waa inoo ka maarno xagan dhig okay marka waxaad tirahdaa padding kor ka soo dur kor tag padding top waxaad tirahdaa 260 pixel ka soo dur kor padding button na C padding button 0 dhe isaga font size 55 pixel okay control S dhe kor ku noqo save that's okay okay waxaad timaadaa intan soo qaad intan oo dhan ku biyay hoste halkan biyo inuu bedel hoose okay intan inuu bedel okay waxaad tirahdaa margin top and bottom 10 pixel left and right with 0 pixel control S okay font size kan yar si big yar tahay okay aan ka dhigno 20 pixel okay it's good
okay shaygan waxa aan rabnaa inaan sameeyno waa input group class kan inaan soo qaadno ka input groupka marka ugu horeysa waxaad siinaysaa padding 3 pixel background white color okay border radius 3 pixel 500 pixel margin auto width 90%. Okay. Browser attack refresh keren. Okay. I think it's good. kan waa input group kaliya maaha waa input group waxa weeye waa dhifta dhan ee wada waxa la yaqaan wada text boxka iyo buttonka marka hadda dhifti kaliya ayaynu still ku sameynay maaha text boxkii buttonkiina maaha buttonkii waa kan text boxkiina waa kan laakiin waxa ka dambeeya dabadeeda ka muuqda hadda gilgiisa ka muuqda oo dhifta ahaa way waxaan still ku sameynay hadda waxaan ku xijirnaa waxa loo yaqaano text boxka ay ku xijirnaa ku noqo waxa soo qaada form controlka hadda ay text boxka ay jireen ku soo noqo xagan ma 0 pixel hadii border radius hadii aad marka hore soo siisay oo kale hadii border radius kii aad marka hore siisay oo kale si border radius 3 pixel okay waxaad tiraahdaa box shadow waxaad okay maadaama aad isticmaalaysid waxa loo yaqaan bootstrap وانا هحط important okay انت لو نسيو copy important again copy ساو وقتي اول عشان okay ونقو browser ka refresh ده okay I think in dhankan صح dhankan baan yar ka harsan button ka weeye laakiin text boxku waa styles waa dhamaaday waa button ka weeye wax girgirkan leh okay ku noqo xagan inta loo koobiyay hostag html ku noqo html ku noqoto waxaad soo qaadaa inta soo qaad buttonka ayaa maanta style ka siinana buttonka ayaa maranaa in soo socno okay form control ku bedel intan way wada wadaagayaan okay inta seen daar baan ku sii daranaa widthka aad siinaysaa labadii hore labada button hore sign up kay login ka aan laba dhisigaysa hadasa 100 pixel digadi okay colorkiisa waa tigadi expiry istimaal okay background buu leeyahay background kiisa xasiisa linear gradient iyo istimaal okay 1F 54 sorry 54 C7 comma 1F C7 must marina 54 okay control S I thinking one وحبل وباهين لكن هرتا okay it's good but حاجة padding وباهين okay مكان كترها padding 0 pixel طبعا right و 0 pixel باتينا صار طبعا right هاي سوري طبعا bottom كور يخص وحتينا صار 0 pixel بيحي مدري حسيس عشان لا pixel okay refresh هذا
I think it's good. Okay, waxaan filayaa in sectionka ugu horeeya aynu macaaw qaadanay. marka sectionka ugu horeeya I think qoraalkan uu yara dheer yahay, marka waad ku sii dari kartaa adigu, no problem. qoraal dheer waad ku sii dari kartaa, laakiin xagga designka I think inay isku mid yihiin. xagga sare laba button iyo hal logo oo dalxiis.com qoraal iyo qoraalka bitaga kana wax waana search box iyo buttonkiisi. iyo fartan aan ku daro waxa loo yaqaano important. Okay, control S. I think kan iyo kii hore inay isku mid yihiin oo aysan wax difference u dhaxaynin. Midna ba qoraalkan oo kale uu yara dheeraa, laakiin no problem, adigu waad sii kordhisan kartaa qoraalkan oo kale paragraph-ka hoose. عشرين عاو انت سيوكيكا اديت بالماتسنتين ان شاء الله تعالى. وبسيتك waxaan ka dhigi doonaa 3 بارتي ama 4 بارتي. بارتي koobaad caawa header section ma ku qaadanay, hadii Allah wada leedmo habeen dambe section ku xiran qaadan doonaa ilaa adigu u banaan 3 habeen oo kale ayaan ka dhigi karaa 3 section oo kale. marka caawa section keenu waa header section wadiga haysta ma filaya search box-ka oo buttonka iyo text box-ka kooban, labada button sign up iyo login-ka dalxiiska oo looga ahaan cawlaan u isticmaalayo kale. intaas ayuu ku ekaa. aad iyo aad baad mahadsantihiin. ilaabina inaad channel subscribe saartaan, free ga dadka leh ka heshayna please like saara. aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.